goormay amaanadu dayacantay marka loo tiiriyo buu nabigu yidhi idaa usida alamru ilaa hayri ahli amaanadu waxay dayacantay marka maamulka loo dhiibo cid aan u cuntamin alamaana waa shardi inkastoo soomaalidu maahmaahaan ka maqlayba waxaa ka mid ah ninkay adhiga kala quustaan bay geela u dirtaan baa la yidhi ilmahay adhiga markuu kasii daayo la yidhaha geela ha lagu daro geelii baana labada ku qaalisanaa agtooda kay dg kala quusataa bay tidhaha wasiira laga dhigo kay doraad wasiirka kala quusatay berrinta madaxweynaha u dooratay iyo wasiirnimada waa shaakiladay hawdka kala timi ee ahaa adhiga kaka adkaan kari waaya geela ha raacdi un weeyaan alamaana qadiya bay ahayd macruufa oo qofka mu'minka uu ku xisaabtamo oo ah qofku inaanu wax qaban karin in amaanadiisa la hubiyo mooyaane 40kii ninkii la ogaaday inuu khaayinka ahaa ee 50kii la ogaaday inuu khaayin ahaa ee 60aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ee 70aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ee 80aadkii la ogaaday inuu khaayiyey ayaa 90aadkii haddana loo dhiibaya ma hada dadku ma maskaxda ka tirsan maya almafahim siyasiya almacaalim siyasiya alislaamiya ayaa ghaa'iba cinda alumma ayaan jooginba dadkaan garanaynba cid ay dooran lahaayeen dadkaan garanaynba cidda wax loo dhiibayo waa inaan gartaa intaanan sanduuq liqtiraac wax ku ridin sanduuqa wax lagu foodeeyo intaan la odhan dimuqraadiyadii way foodee kusoo rid waa inaan gartaa waxa wax lagu doorto criteriyu waa inuu ii cadyi maxaan qofka ku qiimaynaya maxaan ku dooranaya markaan maxay ka helaa baan u baahnay inaan ugu rido ilaa markhaatigan ilaahay baa weydiinaya qiyaamaha waa markhaatiga ilaahay baa weydiinaya waa inaan gartaa waxaan wax ku qiimaynayo si aan wax u doorto umma jaahilana ma garata waxay wax ku qiimaysa inay tiraa waa nala reer mooyaane ama waa nala qoys ama waa nala caynkan mooyaane waxaan leenahay marka amaanadu waa shay asaasi ah